inihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa maxkamadii waxa ay ku xukuntay in la soo qabto isla markaana waxay u goysay soo qabasho xarig ah sida uu sheegayo qarankiisa gaarka Dan Matansha warfadiyeenada la hadlayay ayaa sheegay in maxkamadu ay sameysay wuxuu ku tilmaamay sharci darro kadib markii waaxda dhinaca u sareysa ee dacwad oogaha qaranka dalkaasi ee the National Prosecuting Authority NPA ay sheegeen in madaxweynahaas laga rabo ay yiraahdeen in maxkamadda uu yimaado bisha May 6 hadii kale la soo xiri doono 77 jirka ayaa la sheegay inuu ku dhumanayo dal kamid ah dalal aan magacooda la sheegin sida uu sheegayo qarankiisa oo sheegay in arrimo caafimaad uu joogo meel aysan ahayn in la cashaaciyo si kastaba ha noqotee Diafly qaranka maxkamadda ama andhaho markaas dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 77 jirkan la doonayo in sida ugu dhaqsaha badan maxkamadda u yimaado 6 bisha May ama bisha 5 hadii taa la waayana la soo xiri doono meel uu caalamka kaga sigan yahay maxkamadda Pietermaritzburg High Court la yiraahdo waxa ay sheegtay in ay horay usan u keenin cadeymo ku filan isla markaana aysan haysanin wax ay uga samirto in uu imaan waayo ama ugu jeer dhaafto Mr. Jacob Zuma waxa loo haystaa lacag gaadhaysa 2.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah taasoo 1990kii uu la sheegay inuu isdoomariyay ama uu xaday waxaana dhowr jeer maxkamadda ay sheegtay in arintaasi laga cafiyay sanadkii 2019kii ayaa maxkamad si hordhaca ay u laashay arintaasi isla markaana ay sheegtay in aan loo haynin cadeyn ku filan markay noqoto in madaxweynuhu uu lacagtaasi